بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو هذا الأكاديمي ما أنت إن شاء الله تعالى waxaan baran doonaa casharkeeni labaad oo buugeeni basic grammar English ka ah. maanta casharkeeni labaad waa the capital letter. Capital letter xarfaha waaweyn. The capital letter is also called big letter or uppercase letter or sometimes just a capital. Capital letter sidoo kale waxaa lagu dhawaaqaa big letters and uppercase letters. marka qaarna waxa lagu magacaabaa capital. capital letter da maqshid waa xarfahan waaweyn sida a b waa xarfo waaweyn. soo sheedi maxaa la capital letter xarfaha waaweyn. When do you use a capital letter? kormaal isticmaala xarfaha waaweyn. Use a capital letter for first letter in sentence. capital letter ka waxaa la isticmaalaa marka ugu horeysa aad rabto inaad qodid jumlo sida the dog is barking ayuu qeylinaya. come here halkan imow. the dog is barking da maxaa ugu horeysa tida ugu horeysa maxaa weeye waa capital sababta waa xarf weyn. come here maxaa c capital letter. always use a capital letter for the word I. xarf kasta oo I ah meel kasta aad ku aragtid maxaa ka dhigaysaa capital letter ka dhigaysaa. I am anigu 8 years old waxaan jiraa 8 sano. Tom and I are good friends. Tom iyo anigu waxaan nahay saaxiibo wanaagsan. ayda marka maxaa weeye first sentence soma marna waa ugu horeysa marna dhexda ku jira soo jeedid markastoo ay meel kastoo aad ku aragtid maxaa u isticmaalaysaa capital letter. good. we use one isticmaalna a capital letter xarfaha waaweyn for the names of people magacyada dadka sida Alice aadu waa capital. Tom taadu waa capital. James jeedu waa capital. Kim keedu waa capital. Snow istu waa capital. White w waa capital soma. we use one adeegsanaa a capital letter xarfaha waaweyn for the names of place magacyada goobaha sida National Museum, Bronx Zoo, London, Sacramento. intaas dhan maxaa weeye waa goobo magacyada soma kulligoodna muxuu ka bilowdaa capital letter. we use one adeegsanaa capital letter xarfaha waaweyn for the festivals iyadoo kale holidays maalmaha fasaxyada kale days of week maalmaha isbuuca month of year bilaha sanadka. New Year's Day maalinta sanadka cusub. Christmas maalmaha ciida Christmaska. Labor Day maalinta shaqaalaha adduunka. Mother's Day maalinta hooyada. Sunday, Monday, Friday, January, May, July, October. intaas dhan maxaa weeye waa magacyo xaflada fasaxyo iyo asbuuc maalmaha asbuuca iyo bilaha sanadka. casharkeeni labaad maanta intaas aan joogo la soo casharka xiga.